xildhibaan maxamed maxamuud yaasiin dheeg oo ka mid ah mudanayaashii goobjooga u ahaa kulankii ay la yeesheen komishinka doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa si adag ula hadlay shaqada adag ee komishinka doorashooyinku hayaan isla markaana aanay haynin cid la shaqaysa wuxuuna xildhibaanku ugu baaqay gudida komishinka doorashooyinka inay iscasilaan hadiiba buu yiri ay waayeen cid la shaqaysa mucaarad iyo muxaafid si ay uga badbaadaan eedda uga imanaysa shacabka Somaliland xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri horta anu runtii ma jecleen bay in saxaafadda la saaro waayo saxaafaddu waxa qof ay gooni u weydiinaysa iyadoo golaha ka duubataaba waraysanay dastuurkeenu saxaafadda waxa dii hoos u sheegay karo kale kama saaro dastuurkeenu saxaafadda waxa weeye commissionku maalintii hore u yeednayna way noo warrameen lixdii qodob ay yiraahdeen intaasi ka qabsoomi weyday doorashadana laguma saraynin barigi dhawto imika waxba dhaqdhaqaaq laba sameeyeen iyagu waxay sheegeen inaanay mar qura fadhiisan oo madaxweynaha mar walba u sheegaan laba bilood ku joogay ayaa inta doorashada hor taagan u sheegnay bayna idin kana waa idin sheegnay golaha wakiilada waa u sheegnay wax alla waxaanu idin sheegnay ma jirto annagu miyaanu idin soo qabqabanaa annagu waxaanu doonaynaa in la shaqeeyo wax la shaqeeyay waxay wax la shaqeynaya ma jiraan wax la shaqeynaya ma jiraan golaha guurtida ugu sareeya dalka hadaa shaqeynaysan nala shaqeeya tiini qabta xisbiyada oo heshiye mooyo waxba doorashada qabsoo mayso gaalana wax nasiir maysay isu keena idinka qaabilsan ina khilaafaadka siyaasiga halisaan way lagu yiraahdo waa runtood golaha wakiilada xeerarkiisa bay isaga haystaan ma yiraahdeen waa runtood madaxweynuhu waxaan u nolaa barti ka dhaqaajin bay yiraahdeen waa runtood marka anigu inaa idhaahdo war hadii waxay la shaqeeyay weydeen ma iscasishaan mooyaane wax alla wax kale oo niman ka idhaaho way hakranay garmay ilaahan war hadaan la shaqeynaynin oo waxa halkay waxba lagu qabanaynin oo baahida loo qabo doorashada qabsoonta aan waxba laga qabanin waa iscasileynayaan mooyaane wax alla wax kale oo nimanka ku canaanto ma garanayo waan dusha inaga soo saaray gudoomiye oo garaabay waa runtii buu yiri kooxda anaga runtii soo saartay waa maasantii waa maxamed cabdi cabdilaahi maxamed andar CNA TV magaalada Hargeysa.